إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون geerida maanta hadraawi ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtigiisii maanta ka yeelay xaqii ku soo degay waxaan leenahay Allahu naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista jannada ka waraabiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala halkiisii iyo qaraabadiisii iyo dadka reer Soomaaliland iyo Soomaalidaba dhammaanteed ilaahay subxaanahu wa tacaala sabir iyo wanaag ka siiyo hadraawi wuxuu ahaa runtii shakhsi qaaliya oo dadkii Soomaalida marka la tilmaamayo faciisi wuxuu ahaa runtii shakhsi ka soo baxay oo haday tahay aqoon iyo haday tahay garashada Ilaahay bixiyo iyo haday tahay nurtida iyo xikmadda oo hadalku leeyahay Soomaaligu haday tahay dhaqanka haday tahay diinta haday tahay ilbaxnimada haday tahay filosofiga iyo nolosha sidii loo fahmi lahaa waxa shakhsi aad iyo aad ugu ah caan hadraawi yani macallin buu ahaa dhaqanka iyo hidaha ku xeel dheer hadraawi wuxuu ahaa qof saameyn badan oo gaar ahaan facayga dadkii ugu saameynta badnaa buu ahaa nolosha yani saameyn badan ku lahaa xilliga aan yaraa ku garaadsaday isagoo ama ku kacaamay aan iraahdo isagoo riwaayadihiisii iyo waxa weeye hal abuurkiisii wada oo runtii waxa weeye xilliga ahaa caan ku ahaa iyadoo wax yar kadibna uu halgankii qalinka iyo jaamacadihii iyo waxbaristii iyo aqoontii uu waxa weeye dhaxda u xidhay iyadoo isbedel doon ahaa oo wax yar kadib uu halgankii isbedel doonka ahaa ay iskaga hor yimaadeen xukuumaddii militariga ahayd iyadoo muddo yar kadib qoriga qaatay oo duurka galay oo isagoo aqoon-yahana isagoo abwaan caana haddana uu qoriga qaatay oo duurka galay haddana markii Somaliland dadkeedu ay la soo noqdeen Somaliland waxa weeye systemkii militariga ahaa iska xoreysay wuxuu ahaa dadkii waxa weeye u baxay qurbaha aan khilaafkii Soomaalida dhex qaadin aan Somaliland khilaafkeedii dhex qaadin sidoo soo ka waramayna dabahoon markuu ka waramayay wuxuu yiri balbaadi doon wax ka duwan intan muuqata intan arkaysa yani intan kula joogta arkayso wax bal dunida ay idin dheer tahay oo aad ka soo qaadato kadibna waa kii Ingiriiska tagay caan wuxuu ku ahaa maansadii dabahoon ee dheereed la 800 bayd ahayd oo nolosha wax badan oo kamid ah kaga waramay safarkiisii iyo sacyigii uu ku baxayna uu kaga waramay sidoo waarkay iyo wixii uu la kulmay iyo aragtidiisii sidii ay wax uga bedeshayba uu la soo noqday inta kadib wuxuu soo noqday dalka hadraawi wuxuu jaamacadaha iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanka ayuu isku dayay inuu u fuqooday aragtidooda aad kor ugu qaado ku dhex jiro wax baro talo iyo tilmaan la dhex joogo sidii uu sidaa ahaana Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu keenay xanuunkii uu maanta u geeriyooday oo xaqi ku soo degay intii marka sanaadkii dambeeyay waxaan u sanayay marka hadraawi qofka noocaas ahaa Ilaahay waxaan uga baryaa naxariista janno ka waraabiyo saameyn buu qof walba oo Soomaaliyeed meel jooga qalbigiisa ku leeyahay waxa nin ka gudbay arriga Soomaalida saameyntiisu oo ay dunidu aqoonsatay waxa uu yahay iyo maqaamkiisa oo aqoonsatay waa arkay qof walba waa arkay karayay in waxa weeye la yaabna way ahayd runtii in boqor kamida boqorada Yurub oo yani ama waxa weeye madaxda Yurub gaar ahaan Holland inay soo siiyeen shahaado sharafta ku qiimeeyaan dhaqanka inay soo ku qiimeeyaan inala afahayn oo inala dhaqanayn ay haddana saameyntiisu gaadhay gabayadiisa iyo heesiisa qaar badan baa lagu turjumay afafka qalaad gaar ahaan Ingiriisiga lagu turjumay waxa caana runtii Mayor of London Sadiq Khan markuu ka hadlayay hadraawi soo daliishanayay beydadu kam uu leeyahay buu soo daliishanayay marka hadraawi ka gudbay Soomaali iyo saaxadda Afrika ka gudbay oo dunida oo dhan warkiisa iyo saameyntiisu gaadhay buu ahaa shakhsi aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa haddii qof Soomaaliyeed filosof lagu tilmaami karo xasle malakii koowaad buu ahaa xagga filosofiga iyo fikirka nolosha sida loo fahmayo oo waliba mar walba ay ku lamaan tahay dhaqanka iyo diinta ku lamaan tahay marka hadraawi runtii shakhsi aanan amaanta ka warrami karin isagoo aanan anagu isku facahayn aanan nolosha wadaagin wax badan haddana shakhsi aanan ka warrami karin oo la dhameyn karin wuxuu ahaa iyo halkuu ugu jiray bulshadan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto ilaahayna waxaan uga baryaa inuu ciwad khayr qaba iyo hadraawiyo fara badan
somalilan iyo soomaalidaba siiyo waa mahadsantii salaam calaykum